بسم الله الرحمن الرحيم حنتوبة ميكروفونان gacanta ku hayaa hadaan qarsoomar raaliga ahaada waxay sumay timi bahdii saxaafada marka hore waxaan jecelahay in aan u mahadnaqo guud ahaan dhalinyarada waqtigooda u soo hortay inay ka soo qayb galaan munaasabadan aynu caawada joogno iyo qodobkan laga hadlayo ee abwaankeena shaacirkeena gabayaageenu uu taxaha ka tirinayay ee ahaa dadka la haybsooco hadda uu hadal hayay ayaan leeyahay waliba waxaan jeclaan lahaa in intaa ka soo badataan waxay nagu yaraaday meesha intaan gudagelin dulucda hadalka halkan caawa doonaya inaan ka idhaaho waxaan isna mahadnaq u jeedin maayee leeyahay baaldahabad halganka ka jirtaa abwaanka isna tixdan tirinayay saaxiibkay oo la sacabka u tumay Yuusuf Shaacir waa geesigu waxa la yahay qofka qaladkiisa qirta weey geesigu waa qofka naftiisa xakameeya ee u sheegay dulmiga inuu ka celiyo waxa la yahay mujaahidka xitaa oo rasuulkeenu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ugu weyn inuu yahay ka naftiisa kula jihaada xumaha ka celiya marka ninka maanta dadka daalimiinta ah ee dadka masaakiinta ah dulmaya kamida ee ilaaha waan qaldanay dad yahoy istaaga waa nin geesiyankaas mar labaadan la sacabka u tuma xaqa ku dhawaaqidiisu wax sahlan maaha waana qofka marka wax dhibaatay haystaan ayuun baa garan kara waxtarka u leedahay qofka isagu marka u ilaaha ereygii uu doonayay ama wuxuu tari lahaa ka isaga ka soo horjeeda ee dadkan hadda aan wax ka sheegaynayna u badan yahay waa ereyga ilaahay kama dhigayntiina halkan joogtee waxa af Soomaaliga lagu yahay caaq qofkaasi waa caaq waxa weyn qof dhibaato sameeynaya haddana ku si adag oo la toosan tahay dhibaatada uu sameeynaya waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah qaab baaba la yaabaya dadkan markay cawdaan waa dadkan uu kamid ah hadda uu sheegaya markuu la dhibaatada ugu haysan naga daayo qoonay maxaa ku haya meel caaq ahayn qof xanuunsanayo TB qaba hadda ama cudur kala qabo jiifa haduu tahay toom xad la tahaysa kibir baa ku hayee miyaan caaq ahayn hadda tahay qof hadda coronavirus qaba maxaad u qofaysaa Allah hindisaysa soo leeyahay ma hayna waxa markaan waanu taahayna waanu cabadaynaa waanu guuxaynaa ilaa aan naga fahamtaan dhibaatada haysa idinka danmayna naga durkaba waanu u fadhinaa inaan wax idin sheegno dhalinyarada inta wax galadka ee caawa halkan fadhida iyana waxaan u sheegayaa oo leeyahay oo ku soo koobiyaan caawa inaga waxaan la hadlayaa dadka la leeyahay waa la haybsoocaye ayaan la hadlayaa saddex halgan baa jira oo adduunku uu soo maray oo dadka inaga oo kale ay kaga baxaan dhibaatada haysata halganka ugu adag ee laga baxay ugu wanaagsan ee uu ku jabo qofka daalimka waxa weeyaan aqoonta marka ta aqoon badato waa dishay dalka Mareykanka dadka madow ee ku nool ee liha black Americans ama Mareykanka madow waxay halka la geeyay iyagoo bad adoona oo la iibsanayo oo la kala iibsanayo maanta halkii maraya waa aragtay ninkii uu horeeyay halgamay Washington baa loo jeeday ma madaxweynuhu horeeyay waa nin madow baa isna loo jeeday Washington ninkaasi wuxuu ku halgamay aqoon wax barashooyay waa inaan wax baranaa iskuulkii uu horeeyay dad madow wax ka bartaan buu furay isagu sidoo wuxuu bartaa qosol lahayd daba iskuuladu markaa kuma la barataan ma ahayne kiniisadaha ay ka furaayeen aqoonta la bartaana ma lahayn chemistry physics iyo science iyo arts iyo waxa ma jirin waxa la isku oran jiray philosophy isku wada nooc bay hal subject bay wada hayna maada ninkan iskuul markaa kamida kuwa kiniisadaha ka ahaa dulxaad oo xaari jiray soo baadariyaasha kamida ilaahay baa leh ayaa dambaabi jiray oo adoonkiisa waxa daaqadu ka dhageysan jiray waxbarashada daaqada markuu xaaro kalaasida ayuu looma ogolan fadhiisto fasalka daaqadu ka dhageysan jiray fasalkii u dambeeyay lagu qalin jabinay markuu malayo ayuu ninkii macalinka ahaa macalimiintii dhageysan ninkii iskuulka madaxaaba ku yidhi isagana dambaabiye lahaa daana kule ayuu yidhi imtixaanka fadhiisto ninkii baa qoslo yidhi baaba ma nin madow waxaan garan karaa markaasuu yidhi waan garanayaa
وانا ماده waxaan keenay kala geersare isagoo ka maadsanayo yiri halka daaqadaad ka dhageysan jirtaan kursi ku dhigayaa waa ku kay talkan isagoo isma la markaa ninkan waxbu garanaya wuxuu keenay A+ halkan A star baabal maqliyay inankii u sareeyo noqday fajiciisa ku noqotay markii cadaayba daryaashaha ninkii wuu maxay naxariis bay ilaahay u geliyay wuxuu anigu ku xoreeyaan waan ku xoreeyay hadda laga bilaabo meeshan iskuulka ama assistant lecturer ka noqo dadka cadaankaana iska ilaali ma yaabul kuwa beeraha ka shaqeeya ilmaadeerada ay madmadow ayaan wax barayaa wuxuu dhisay oo iyagii intuu u yeedhay dhisan waxay dhiseen waxaan inagu nahay sandaqada oo cariish liyo xagga adduunka oo loox ka samaysan burisay caalamkoo dhan baa daawada hadda looxi iskuulku horeey madowgaloway habeenkii markay beeraha ka yimaadaan ay wax bari jireen iyaguna waxay u keeni jireen hambada waxay ay cuneen iyo waxay soo heleen waxa qosolaad bataan uga jeeda waxay tahay tartamada ka dhaca dalka Ameerika ilaa hadda lagu qabto waa dhinaca qoraalka oo essay writing leeyahay ayuu ka qayb qaatay ra'iisul madaxweyne madooba isu qori kara tartankiibu galay qofka koobaad New York baa looga yeeray markaa la isma laha waa madow ninkan waxa ayaan daran qotay guddigii bixinayay abaalmarintu markuu u yimi isagoo nin madow ah ayay xageenu geenaaba ninkan aawo bar xageenu seexinaaba hudeel laga ogol yahay nin madow la seexiyaa ma jiro waa mamnuuc hadduu garanimo laha kee kullu Klux Klan oo ina filimada ku daawateen mooyee marya cad gasado indhuhu daloolaan oo ugaarsada jira dadka sharciga jabiyo oo dilaya dadku mar walba nin wanaagsan baa jiray nin hordheer lahaa isagu xoogaa dulqaad u lahaa dadka madow ayaa leeyahay maqsin ilaa waagu intuu bari yiro seexiyo isagiina waxa leeyahay ka soo bixin halkaas cuntada lagu keenaya suudna waa loo soo kariyay hordheerkeena badagay asadii miska soo baxay isagoo labisan halkii cadaanku fadhiyay ma soo fadhiisto ninkii hordheerka lahaa dadkii dhan waa argagaxay waxa laga baqay ninkii halkan lagu dilo inankii maqaayada ka shaqeynaya isagoo xishoonaya la hadlay wuxuu kula hadlay word Ingiriisiya oo nooca liha ambiguous waxa weeyaan laba macno yeelanaysa qofka aqoonta leh afka u dhashay waliba aqoon sare loo garan kara macna kamid wuxuu noqonayaa weedha inuu kula hadlay dadka madow halkan lagu ma adeegno uguma shaqeyno weedha labaadna waxay noqonaysaa hilibka dadka madow lagu ma cuno macnaheedu inankii baa ku yidhi we don't save blacks here addaanku uu dhageysanaya wuxuu yidhi I don't eat them too aniguba ma cuno wuxuu qaatay xaqi kale waa wada qoslay ragiibana waa ninka qadada u keenay ninka cashada u keenay walaakiin waa qowleeyay ninkan wuxuu yiri digaagad badhkeedii keen waa loo keenay intaanu cunin baa ragii soo galay odayaasha ahaa ee qalbi xashiishka ahaa iyagu dadka madow nacba waa keeda mid waxay yiraahdeen bear in your mind whatever you do to chicken we are going to do to you maskaxdaada ha gasho wax kasto digaagada ku samaysan kugu sameynayna macaan hadda digaagada cuntada waa lagu cunaya ninkii wuxuu yiri is that a promise ballan ma tahay haabileen intuu digaagadii soo qaado dhunkada markii san dhaqaaqa ayaa wixii cadaay meesha fadhiyay baastoorada la soo baxay dhunkada idinka doonteen dhunkada wuxuu noqday the first black man killed by white man ninkii uu horiyay madooba ee nin cadaa dhunkadu noqday waxa dilay wax barta la tartama talaamiinta marka aqoontiina afaysataan miya qorxada baabaca lagu qalin kara ma lagu qalin marka kala uu sheegay walaalaheen waxay tahay islaamnimada hadda uu sheegay Yuusuf anu ma qabo qof walaalka xaqrayn islaamiga laba boqol hadeen qoto jeer annaga xagga ilaahaydi ka dhow way anigu waxaan ognahay inaan nahay walaalihiin idinkana waxaan idin leeyahay ilaahay hayd tuso inaynu nahay walaalo waynu isaga sokaynaa bini aadmiga kale isku dalbaynu nahay isku midab baynu nahay isku af baynu nahay laakiin wax kale isma dhihin aynu wax kale soo noqono insha Allah oo isu soo dhawaad waxaan idin sheegayaa iyo baan idin sheegayaa oo aan doonay caawa bal ina isweydiisaan iyadoo tan waxaan galay jimcahan ra'iislayaasha marka muraayada weyn baan isku eegaa haleelaa inta badan isma eego
marka niman ku jiray waa hadalladii hadda nin cid bartayba ma garanaya hadallada cid ma bari jirin yusuf meeshii kale ma aqaanay ayaan qaar ka mid ah ku hadlay muraayadii baan soo taagay rag badan baa ku jira hay balbale marka waxaan eegaa bal inta iga soo hadhay jimaha marka waan ducaystay waxaan leeyahay ياسين عليك أنا يسود عيني ياسين عليا ياسين عليا اللي يعوري بلاو إلى هو إيشوذا نعذوذا رافكوذا وتلاهيته يشوذا بين يراي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.